السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي qiimaha badan maanta iyo muuqaal cusub muuqaalkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa systemkeena qaybtiisa 11aad waxaan kusoo guda jirnay system aan ugu soo magac darnay school management system kaasoo aan u adeegsanayna ama aan ku dhisanay programka lagu magacaabo Microsoft Access Database casharkii ka horreeyay waxaan soo sameynay wax la yiraahdo login oo aan usoo sameynay username iyo password designkiisana qaabkan ayaan kasoo dhignay okay designka qaabkan ha ahaada ma xume balse howlo badan ayaa designka nooga dhiman tusaale haddii aan gelino Hudson Academy kadibna username ama password aan gelino 123 kadibna login aan dhahno wax action ama wax ficil ah ma dhacayo okay laakiin badhanka log out wuu shaqeynaya isaga okay waxaan maanta ka shaqaysiinaynaa ama aan programinaynaa badhankan login kan ayaan programinaynaa halkan marka aan gelino magac ama user marka aan halkan gelino halkan waxaan u baahanahay user inaan gelino halkanna password inaan gelino wuxuu doonaba ha noqdee okay aan isla socono marka inta aanan user iyo password aanan u sameynin waxaan u baahanahay login framekan in aan xoogaa wax yar aan maaragta dee programino wax yaroo code ayaan qori doonaa sidoo kale codekaas qaybta faalada ayaan soo dhigi doonaa cidii u baahana halkaas ay kala degi doontaa hadhow waxay iska bedeli doontaa oo keliya usernameka iyo passwordka oo keliya iska bedeli doontaa okay waxaan leeyahay marka right click kadibna design view halkan ayaan ku dhufanaya halkan markii aan ku dhufto waxaan tegayaa text boxkan username ay ku qoran tahay waxaa ka hooseeya badhankan oo loo yaqaano unbound text boxka la socdaa kan marka waa maaragta waxaa kugu qoran text ani hadda waxa igu qoran text9 aa igu qoran halkan oo iska bedelaya waxaan ka dhigayaa username ayaan ka dhigaya halkan kadibna tab ayaan iska leeyahay sidoo kale waxaan imaanayaa kan ayaan imaanaya isagana waa kan waxa igu qoran text10 aa igu qoran halkan ayaan ku dhufanaya isagana waxaan ku qoranayaa password okay kadibna tab ayaan leeyahay intaas marka aan sameeyo kadib waxaan u imaanayaa badhankeyga aan u imaanayaa right click ayaan leeyahay kadibna billy event halkan ayaan ku dhufanaya halkan markii aan ku dhufto waxaa iisoo bixaysa daaqadan ayaa iisoo bixayso daaqadan ayaa iisoo bixayso okay billy event marka aan kusoo dhufato waxaan kusii dhufanay macro pillar qaybta ugu hooseysa ayaa dooranay okay kadib waxaan leeyahay if me dot codeki ayaan qoraya username dot value okay kadibna waa kan value markii aan doorto waxaan leeyahay equal double quotation labadaas calaamadood ayaan furaya kadibna waxaan ku qoranayaa Hudson Academy macnaha usernamekaaga halkan ayaa gelinaysaa ani hadda magaca journalka ayaa username uga dhigay and waxaan leeyahay me dot password waa kan waa bilaabaya isaga ii dhamaystiri doono password dot value sidoo kale valuegana waan bilaabaya isaga ii dhamaystiraya dot value marka aan dhaho equal aan leeyahay double quotation kadibna waxaan gelinayaa passwordkayga okay waxaan leeyahay 35 76 42 oo kale kadibna waan ku xirayaa passwordka waan ku xirayaa passwordka markii aan ku xiro kadib waxaan leeyahay then okay enter ayaan leeyahay marka intan hadda waxaan qoray usernamekayga iyo passwordkayga ayaan sameeyey okay kadib inta kale ficilada dhexeysa waa tusaale waxaan dhahay if dot aan iraahdo if me dot username dot value okay equal double quotation Hudson Academy double quotationka ayaan ku xiray calaamadahan kan waa usernamekayga ada hadhow halkan iska bedeli doontaa usernameka ayaa gashan doontaa and b password dot value ayaan dhahay equal kadibna double quotation halkan waxaan gashtay passwordkayga ayaan gashtay kadibna then ayaan dhahay enter ayaan iri okay intaas marka aan sameeyo marka waxaan leeyahay do cmd dot waxaan qorayaa ereyga do kadibna cmd dot waxaan leeyahay open form okay waa kan kana dooranaya open form double click ayaan leeyahay okay markii usernamekii passwordka la geliyo waxaad iisoo furtaa formkan iisoo fur waa formkee double quotation for formka lagu soo furayo gudihiisa dhex geli tusaale ani waxaan rabaa haddii qofka usernamekii passwordka haddii uu soo geliyo dashboardka inuu igu sii xiro okay double quotationka ku xiraya waxaan iri do cmd dot open form kadibna double quotation dashboard ayaan ku qoray dashboardkan gudaha ku qoraysa iyo dashboardkaaga banaanka waa inay isla yihiin magac ahaan okay dashboard markaan dhaho double quotation aan ku xiro waxaan leeyahay comma markaan dhaho waxaan leeyahay ac normal
AC normal waa ka xagee ku qoranta. Okay. AC normal markaan dhaho waa maarata layinkaas sidaas ayaan ugu dhamaaday. Kadib waxaan leeyahay haddana enter ayaan leeyahay. Mar kale waxaan leeyahay do cmd dot. Marka waxaan leeyahay close. Closetan caadiga waa kan. Ujeedaa? Okay. Waxaan rabaa markii usernamekii passwordka markaan geliyo waxaa iisoo furtaa dashboardka igu xir oo dashboardka iisoo fur. Dashboardka markii lasoo furana waxaa iga xirtaa framekii login ka ahaa ama passwordkii usernamekii isagana iga xir. Waa ujeedka waa intaa. Waxaan leeyahay close. Close markaan dhaho maxaa liiga close gareynayaa AC waa kan. AC waa maarata waxaan leeyahay form. AC form waa kan. Ujeeda? AC form. Waxaa iga close gareysaa formka iga close garey comma ide double quotation formka waa kee login form ama login frame. Okay, frame FRM waa iska soo gaabiyey login frame. Okay, kadibna double quotation ku xir kadibna comma dheh. Comma markaa dhahdo badhanka hoose doore AC save yes. Okay, xogtan waa inay ku save gareysataa. Okay, waxaan dhahnay maarata waxaa iisoo fur usernamekii passwordka haddii la geliyo ay sax noqdaan waxaa iisoo furtaa dashboardka iisoo fur. Dashboardka markii lasoo furo waxaa iga xirtaa frameka loginka iga xir isaga. Okay, intaa waa isla haynaa oo sidan ayaan ku dhameynay. Okay, enter ayaan leeyahay oo space ayaan baxaya. Enter markaan dhaho okay dee wuu qaldanaan karaa usernameka ama passwordka wuu qaldanaan karaa. Haddii usernamekii passwordka uu qaldamo maxaa la ii samayn doonaa? Okay, waxaan leeyahay else. Okay, enter ayaan leeyahay. Else kadib waxaan leeyahay message box double quotation. Haddii usernamekii passwordka mid ka mid ah uu qaldamo waxaad isiisaa fariin box ama fariin waa inay soo boodaa. Okay, waxaan leeyahay username or password is incorrect. Okay, kadibna waan ku xiraya. Usernamekaaga ama passwordkaaga mid ka mid ah ayaa qaldan. Misleyna intaa? Okay, intaas markii aan dhahno marka waa maarata waa kusii darsan kartaa please try again. Sidoo kale fariintan af Soomaaliya ka dhigi kartaa. Magaca ama passwordka mid ka mid ah ayaa qaldan ama magaca ama fursareedka mid ka mid ah ayaa qaldan fadlan isku soo day mar kale. Waa af Soomaaliyeyn kartaa af Soomaali ayaad ku bedelan kartaa. Okay, markaan dhaho username or password is incorrect markaan dhaho waa fariinta ii soo boodayso haddii passwordka ama waa maarata usernameka mid ka mid ah uu qaldan yahay. Okay, double quotation markaan ku xiro waxaan leeyahay waa maarata comma. Comma markaan dhaho waxaa iska dooranaya VB critical waa kan intuu ku qoraya VB critical. Halkan ayaa waxaan leeyahay double tap ama laba mar ayaan click siinaya. Okay, VB critical click markaan siiyo waxaan kusoo xiraya mar kale comma ayaan kusoo xiraya. Comma markaan kusoo xiro double quotation aan furaya kadibna waxaan leeyahay invalid. Okay, login space aan baxaya login kadibna waan ku xiraya. Waa kan. Okay, mar kale enter ayaan leeyahay marka. Fiiri haddii passwordkayga iyo usernamekiisa ay saxan yihiin waa isla garanay waxaan dhahay dashboardka lagu xir kadibna naga xir maarata frameka loginka isagana naga xir. Haddii intaas ay dhici wayso usernameka ama password mid ka mid ah uu qaldamana waxaana siisaa message box fariin ina sii taasoo noo sheegayso usernamekeena ama passwordkeena mid ka mid ah inuu qaldan yahay. Okay, waxaan kusoo gabagabeyneynaa marka end if kadibna save ayaan leenahay. Control S ayaan dhahnay. Okay, aan tijaabino bismillah aan iska xirno halkan kadibna halkan aan iska xirno kadibna view aan ku dhufano. Halkan aan gelino marka usernamekeena waxaan kasoo dhignay Hudson Academy. Okay, halkanna passwordka waxaan kasoo dhignay 357642 ayaan ka dhignay. Kadibna login aan dhahno bismillah. Okay, waa kan wuu inoo saxan yahay hadda. Ujeedaa? Usernamekii passwordka markii aan kusoo dhufano wuxuuna keenay qaybtan dashboardkuna keenay. Waatan dashboardkana waa qayb laga diiwaan geliyo ardada kuwan horaan usoo aragnay waa kan qaybta registrationka. Okay, halkan close aan iska dhahno. Okay, sidoo kale qaybta financiga waa kan close aan iska dhahno. Course informationka
okay qaybta ku saabsan koorsooyinka okay close noo dheh sidoo kale exam informationka waa tan ujeeda okay log out aan iska dhahna marka waa kan usernamekeena iyo passwordkeena waa kan mar kale hadda aan qaladno passwordka aan qaladno okay 3576 aan dhahno meesha 42 k kadibna login aan dhahno login aan ku dhufano badhanka okay muxuuna leeyahay mujeda username or password is incorrect passwordkaaga ama userkaaga mid kamid ah ayaa qaldan mujeda halkaas marka fariinta af soomaali ayaa ka dhigi karta magacaaga ama fursadeedkaaga mid kamid ah ayaa qaldan af soomaali ayaad ka dhigi kartaa okay hadda aan saxno markii 42 aan ka dhigno kadibna login aan dhahno okay waa kan marka okay hal ciladaa jirta marka hal cilad ayaa jirta ciladaas oo ah passwordka wuu inoo muuqdaa annaga waxaan rabnaa passwordka inaan ka dhigno stars ama xidiga inaan ka dhigno ayaan rabnaa sida taas u sameyneynaa waxaan leenahay right click design view okay waxaan tagaynaa badhankan oo passwordka ayaan dooranaynaa kadibna waxaan imaaneynaa meeshan data ay ku qoran tahay qaybtan imaaneynaa data markaan imaano qaybtan input mask halkan ay ku qoran tahay halkan ayaan fureynaa halkan markaan furno waa kan password stars xidigahan ayaan dooranayna kadibna next ayaan leenahay finish hadda viewgeena aan aragno waa kan ujeeda hadda lama arki karo fiiri 1 2 3 4 5 aan geliyey login aan dhaho badhanka aan ku dhufto okay username or password is incorrect mid kamid ayaa qaldan okay hadda aan saxno passwordkeena waxaan leenahay 35 76 42 login noo dheh waa kan casharkeena 21aad halka ayuu inooga egyahay sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fadlan haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe inoo saar like-ta nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faallooyinka